kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaanba halkani waa stuudiyaha telefishinka caalamiga ah Star ku soo dhawaada barnaamijkeennii toddobaadka iyo caalamka waxaana idin socodsiin doona anigoo ah Saciid Axmed Tamrayse qodobada aad daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijkeena toddobaadka iyo caalamkana waxaa kamid ah aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku cambaareeyay hadallada dulqaad la'aanta ah ee nacaybka ku salaysan iyada oo bartanka lagaga jiro muranka ku saabsan yuhuud nacaybka shirkadda Google ayaa wali ka aamusan arrimaha ku saabsan barnaamij Java oo ku shaqeeya internetka oo loo adeegsaday shirkadeeda haweeney khabiir sare ah oo ku xeeldheer cilmi nafsiga ku saabsan carruurta ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi uu ku khasban yahay inuu raaligelin bixiyo kadib markii dhowr maalmood ka hor isaga oo kaftamayay loo fahmay inuu meel uga dhacay barnaamijka ka shaqeeya xanaanada carruurta ay fahmadoodu hooseyso shirkadda baabuurta samaysa ee lagu magacaabo Pininfarina Battista ayaa waxay dhawaan magaalada Geneva ku soo bandhigtay gaariga noociisa aan horay loo farsameynin waana mid dhammaantiis koronto ku shaqeynaya sawirro cusub oo laga qaaday hawada sare ee waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa tilmaamaya in dalkaasi uu dib u dhisayo goob uu tijaabooyinka u adeegsan jiray oo uu horay u sheegay inuu meesha ka saarayo sida ay sheegeen dadka arrimahan gorfeeya It's going, you know what I mean? It's what the Irish do, right? nin xanuun halis la ildaran oo ku sugan gobolka Connecticut ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu rumowday riyadii uu lahaa inta uusan dhimanin ninkaasi riyadaasi oo ahayd inuu la hadlo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump hogaamiyaha kooxda jihaadoonka ah ee dalka Mali ayaa dib uga soo muuqday muuqaal uu soo duubay dhowr bilood kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in la dilay maxbuus ku jiray xabsi ku yaala waqooyiga waddanka Faransiiska ayaa dhaawacyo halis u geystay laba askari oo ka mid ah ilaaladii xabsiga kadib markii uu ku weeraray mindi Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddanka Venezuela ayaa ku baaqay in dad badani ay sameeyaan mudaharaad warbaahinta dawladda waddankaasi Algeria ayaa ku warantay in madaxweynaha waddanka Algeria Abdelaziz Bouteflika inuu casilay madaxii ololihiisa doorashada Cabdimalik Salaal hay-adda maamusha hubka kiimikada ah ee magaceeda loo soo gaabiyo OPCW ayaa baaritaan ay waday waxa ay ku soo gabagabaysay in weerarkii sunta kiimikada ahaa ee magaalada Duuma ee dalka Suuriya loo isticmaalay chlorine qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena toddobaadka iyo caalamka barnaamijkeena toddobaadka iyo caalamka daawadayaal waxaan aalaaba ku soo qaadanaa dhacdooyinkii ama wararkii ugu waaweyn aan ku soo qaadanay toddobaadkan ka soo gudubnay wararka xagga caalamka qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaa daawadayaal waxaan ku soo qaadanaynaa aqalka wakiilada ee waddankaasi Mareykanka ayaa waxa uu cambaareeyay islaam nacaybka iyo waliba sidoo kale yuhuud nacaybka
aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku cambaareeyay hadallada dulqaad la'aanta ah ee nacaybka ku salaysan iyada oo bartanka lagaga jiro muranka ku saabsan yuhuud nacaybka. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa dhaleecayn xoog badan la kulantay dhowaan kadib markii ay si joogto ah u dhaliishay Israa'iil iyo qolyaha Israa'iil u ololeeya ee ku sugan Washington. Xisbigeeda dimuqraadiga ah ayaa ku kala qaybsamay in aad loo dhaleeceeyo gabadha xildhibaannimada aqalka wakiilada ku cusub. Afhayeenka aqalka oo lagu magacaabo Nancy Pelosi ayaa waxa ay diiday in qaraarkan lagu cambaareeyo Ilhaan Cumar. waxaana mar ay arrinkaasi ka hadlaysay ay tiri iyada loolama jeedo balse waxaa loola jeedaa nacaybka. Nancy Pelosi ayaa diiday wararka tilmaamaya in qaraarkan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo hadallada ka soo baxa xubnaha aqalka. Nancy Pelosi ayaa hore u sheegtay inay rumaysan tahay in Ilhaan Cumar aysan fahansanayn culayska ay leeyihiin ereyada ay adeegsatay. aqalka wakiilada oo aqlabiyada ay ka yihiin xubnaha aqalka dimuqraadiga ayaa waxay u codeeyeen qaraarkii la hor keenay ee lagu cambaareynayo cunsurinimada lagula kaco muslimiinta, dadka yuhuudda iyo weliba dadyowga kale ee laga tirada badan yahay. waxaana qaraarkaas taageeray tiraba 407 xildhibaan waxaana ka soo horjeestay 23 xildhibaan. qaar ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ayaa waxa ay rabeen in codaynta diiradda lagu saaro nacaybka yuhuudda ka dhanka ah oo keliya, balse qaraarka ayaa la ballaariyay lagumana xusin magaca Ilhaan Cumar. dad labada xisbi ka kala tirsan ayaa weeraray gabadhan 37 jirka iyaga oo sheegay in hadalkeedu uu soo nooleeyay yuhuud nacaybkii. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhaliilay Ilhaan waxaana uu sheegay inay mar kale culays wajahayso iyada oo loo haysto hadalkii qaabka darnaa buu yidhi ee ay ka tiri Israa'iil. Bernie Sanders oo ah musharax madaxweyne isla markaana ah yuhuudi ayaa war qoraal oo uu soo saaray dhowaan ku sheegay inuu ka cabsi qabo in codka aqalka lagu bartilmaameedsanayo xildhibaanada. waxaana uu intaasi ku daray in dadku aysan isla xiriirin nacaybka yuhuudda iyo in si sharci ah loo dhaliilo xukuumadda Benjamin Netanyahu ee siyaasadeedu ay dhanka midig tahay ee waddankaasi Israa'iil. Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ee Mareykan xildhibaanad ka noqota ayaa horey loogu eedeeyay yuhuud nacayb. bishii Febraayo ayaa lagu dhaliilay Twitter ay qortay oo tilmaamaya in ururka u ololeeya siyaasadda yuhuudda uu gadanayo saameynta siyaasadaha Israa'iil taageeraya. balse markaa kadib ayay raaligelin bixisay waxaana ay sheegtay in xubnaha ay isla shaqeeyaan ay uga mahad celinayso baridda taariikhda xanuunka badan ee yuhuud nacaybka. waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal warbixintaasi inaad ka bogateen barnaamijkeeni toddobaadka iyo caalamka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Saciid Axmed Tamrayse. halka aan nagala socotaana waa telefishinka caalamiga ah Star. weli qodobo kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin gaariga ugu xawaaraha dheer dunida oo la soo bandhigay. qodobada kale inoo soo socda waxaa sidoo kale ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wacay in geeri qarka u saaran. bal laakiin marka intaynaan u galin qodobadaasi aan aadno xagga iyo waddanka Sacuudiga. waddankaasi Sacuudiga waxa uu muran ka taagan yahay barnaamij application ah oo moobilada lagu shubto kaasoo raggu ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqa haweenkooda iyo goobta ay joogaanba. daawasho habboon. shirkadda Google ayaa weli ka aamusan arrimaha ku saabsan barnaamij Java oo ku shaqeeya internetka oo loo adeegsaday shirkadeeda, kaasi oo ay hore ugu sheegtay haweeney ka tirsan Koongareeska Mareykanka inuusan xadgudub ku ahayn shuruucdeeda. barnaamijkan muranka dhaliyay ee lagu magacaabo Abshir oo ka shaqeeya dalka Sacuudiga ayaa waxaa loo isticmaali karaa in raggu ay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada haweenkooda isla markaana ay uga ilaaliyaan inay safraan. xafiiska haweeneyda Koongareeska ka tirsan oo lagu magacaabo Jackie Spear ayaa warbaahinta u xaqiijisay in wada hadal xagga afka ay la yeesheen shirkadaasi Google kadib markii Mrs. Spear ay ka qayb qaadatay qorista warqad cabasho ah oo ku saabsan barnaamijkan abka. mas'uuliyiinta shirkadda Google ayaa iyagu diiday inay arrintan ka hadlaan. barnaamijka Abshir ayaa hadda waxaa laga heli karaa dukaamada shirkadaha Apple iyo Google ay ku leeyihiin dalka Sacuudiga. abkan oo sidoo kale dhexdiisa laga dalban karo adeegyada dawladda ayaa waxaa cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. waxaa intaas sii dheer in barnaamijkan oo dadka isticmaala ay gudihiisa ku cusboonaysiisan karaan ruqsadda gaari kaxaynta
ay sidoo kalena raggu ka heli karaan adeeg u sahlaya in haweenkooda ay ka hor istaagaan safarada aysan raalliga uga ahayn. dumarka Sacuudi Arabiya ayaa caadiyanba marka ay dalka ka baxayaan waxa ay u baahan yihiin wehel qof rag ah oo mas'uulka sida aabahood, walaalahood ama saygooda. barnaamijkan waxaa internetka laga soo dejistay in ka badan 1 milyan oo jeer waxaana uu socday muddo sannado ah. bishii Febraayo madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa waxa uu sheegay in shirkadiisu ay baari doonto muranka hareeyay arrintan. Mrs. Spear ayaa sheegtay in jawaabaha ay ka heshay labada shirkadood ee Apple iyo Google ay yihiin kuwo aan lagu qanci karin. dowladda Sacuudiga ayaa lagu kala qaybsan yahay fikradda laga qabo barnaamijkan lagu magacaabo Abshar. waa hagaag waxaan filayaa daawada warbixintaasi sidoo kale iyadana inaad ka bogateen. haddii dabcan ay ku dhaafaan barnaamijyada telefishinka caalamiga ah ee Star waxaad mar walba dib uga daawan kartaa oo uga soo degsan kartaa bogagga telefishinka uu ku leeyahay xagga internetka. ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa waxaa lagu haystaa hadal kaftana oo uu jeediyay xilli uu khudbad u jeedinayay dad taageerayaashiisa ah magaalada Delhi ee waddankaasi Hindiya. haweeney khabiir sare ah oo ku xeeldheer cilmi nafsiga ku saabsan carruurta ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi uu ku khasban yahay inuu raaligelin bixiyo kadib markii dhowr maalmood ka hor isaga oo kaftamayay loo fahmay inuu meel uga dhacay barnaamijka ka shaqeeya xanaanada carruurta ay fahmadoodu hooseyso ee loo yaqaano dyslexia. Mr. Narendra Modi ayaa hadalkaasi jeediyay isagoo meel fagaare ah kaga hadlayay waxaana arrintan ay dhalisay muran iyo caro aad u xooggan. ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa soo jeediyay su'aal ku saabsan in barnaamijka carruurta ee dyslexia uu sidoo kale hayo waxa uu ugu talagalay cunug da'diisu ay tahay 40 ilaa 50 jir. hadalkaas ayaana u muuqday in Mr. Narendra Modi uu ku weeraray siyaasiga ka soo horjeeda ee lagu magacaabo Rahul Gandhi. Dr. Rama Kumar ayaa waxa ay tiri marka uu mas'uulkii dalka haystay ee ugu sarreeyay arrintan oo kale sida uga hadlayo waa mid aad iyo aad xasaasi u ah waxa uu ku khasban yahay inuu raaligelin ka bixiyo. dhawaaqa ka soo yeeray haweeneydan khabiirka ku ah cilmi nafsiga carruurta ayaa sii xoojinaya cambaaraynta loo jeediyay ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ee ku saabsan kaftankiisii siyaasadeed ee dhowaan jeediyay. Dr. Kumar ayaa ka howlgasha xarun caafimaad oo si gaara loogu qaabilo ilmaha ay fahmadarradu dhinaca maskaxda ka haysato waxaana ay hore muddo 30 sano ah uga soo shaqaynaysay cisbitaal ku yaala magaalada Delhi. dyslexia ayaa ah xanuun caan ah oo carruur badan saameeya isla markaana sababa in ilmaha ay ku adkaato waxbarashada sida akhriska, qoraalka iyo higaada. daraasad ay dowladda Hindiya samaysay sanadkii 2015 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 10% oo tiro ahaan ku dhow 35 milyan carruurta Hindiya ah ay qabaan xanuunka dyslexia. hase yeeshee Dr. Kumar ayaa aaminsan in tiradu ay intaasi aad uga badan tahay wacyigelinta la sameeyana ay aad u yar tahay. ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa hadalkan kaftanka ah ee la qoonsaday jeediyay dhowaan kadib mar uu khudbad u jeedinayay arday wax ka barata cilmiga injineeriyada. waa hagaag weli waxaanu bartanka kaga jirnaa oo dhex mishaaxaynaa barnaamijkeeni toddobaadka iyo caalamka oo aynu had iyo goorba ku soo qaadano waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay adduunka. markan waxaan eegaynaa gaariga ugu xawaaraha dheer adduunka ayaa la soo bandhigay warbixin ayaan idinka diyaarinay. kani waa gaariga ugu awoodda badan ee baabuurta loo sharciyeeyay inay ku socdaan wadooyinka waana kii ugu horreeyay ee xawaarahaas leh oo Talyaaniga ka soo baxa marka ay baabuurtu la tartamaysa ay ku jiraan noocyada kale ah Ferrari iyo Lamborghini waxay u tahay sharaf gaar ah. gaarigan oo ku shaqeeya koronto waxa uu xitaa noqon karaa midka ugu orodka dheer guud ahaan baabuurta ku socota dunida inkastoo marka baabuurta laga hadlayo ay yihiin kuwa ku shaqeeya baytariga uu meesha ka baxayo magaca gaariga loo yaqaano supercar noocu doonaba ha ahaadee. shirkadda baabuurta samaysa ee lagu magacaabo Pininfarina Battista ayaa waxay dhowaan magaalada Geneva ku soo bandhigtay gaariga noociisa aan horey loo farsameynin waana mid dhammaantiis koronto ku shaqeynaya. gaarigan marka uu socdo waxa uu xawaaraha saacadiisu uu gaari karaa ilaa 250 mitir saacadiiba. cabirkaas ayaana orodka gaarigan ka dhigaya mid aad u dheereeya. awoodda fariinkiisa ayaa u dhiganta 2 jibaar awoodda gaadiidka caadiga ah ee hadda ugu sarreeya sida midka ay samayso shirkadda lagu magacaabo Ford kaasoo ah gaariga loogu gadashada badan yahay gudaha dalka Britain. Michael oo ah madaxa shirkadda soo saartay gaarigan ayaa waxa uu yiri
gaadhigan awooddiisu waa mid waaliya gaarigani waxa uu leeyahay bandhig heer sare ah waxaana uu ku shaqeeyaa awoodda korontada ma aha gaarigii ugu horreeyay ee baytari ku shaqeeya oo loo soo saaro dunida horey waxaa magaalada Janiifa loogu soo bandhigay gawaarida noocan oo kale ah balse xawaarahoodu uu ka hooseeyo kan iminka wax shaki ah kuma jiro in bandhigga gawaarida ee usbuucan ka dhacay magaalada Janiifa ay muujiyeen gawaari aan horey loo isticmaalin gaarigan ay la soo shir tagtay shirkadda lagu magacaabo Automobile Pininfarina ayaa waxa uu yahay mid hal sano oo kaliya samaysan tijaabadii lagu sameeyay ayaa waxay ahayd mid guuleysatay marka laga soo tago xawaarihiisa gaarigani waa nooca raaxada ah oo aad loo qalabeeyay shirkaddan ayaa horey ugu caan baxday soo saarista baabuurta soo jiidata indhaha caalamka waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal warbixintaasi inaad ka bogateen weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii toddobaadka iyo caalamka markan aynu eedna xagga iyo kuuriyada waqooyi sawirro dhanka satellite-ka lagu qaaday ayaa tilmaamaya in waddanka kuuriyada waqooyi uu dib u dhisayo xarun lagu tijaabin jiray hubka nukliyeerka sawirro cusub oo laga qaaday hawada sare ee waddanka kuuriyada waqooyi ayaa tilmaamaya in dalkaasi uu dib u dhisayo goob uu tijaabooyinka u adeegsan jiray oo uu horey u sheegay inuu meesha ka saarayo sida ay sheegeen dadka arrimahan gorfeeya sawirradan ayaa waxaa la qaaday 2 maalmood uun kadib markii uu soo dhammaaday kulankii ay yeesheen hogaamiyaha waddanka Maraykanka Donald Trump iyo kan kuuriyada waqooyi Kim Jong Un kaasi oo soo dhammaaday iyaga oo aan heshiis ka gaarin baabi'inta hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukliyeerka xarunta Tonjanri ayaa loo adeegsan jiray in lagu tijaabiyo satellite-yada iyo tijaabinta matoorada dadaalada lagu burburinayo xaruntaasi ayaa soo bilaabmay kal hore balse waxa ay istaageen markii hore socod laga sameyn waayay wada hadalladii u dhaxeeyay Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi burburinta xarunta tijaabada ah ayaa loo arkayay tallaabo kalsooni ka dhex abuuri karta xukuumadda Pyongyang iyo Washington dhanka kalena Maraykanka ayaa waxa uu ka digay in Kuuriyada Waqooyi ay wajihi karto cunaqabatayno hor leh haddiisan ay Pyongyang qaadin tallaabooyin hubka nukliyeerka ah oo lagu soo afjarayo xarunta Zoe ayaa waxay ahayd goobta ugu weyn ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabooyinka ka sameyn jirtay tan iyo sanadkii 2012 waxaana sidoo kale loo adeegsan jiray matoorada loo isticmaalo gantaalada awooda inay gaaraan waddanka Maraykanka balse marnaba looma adeegsan in lagu tijaabiyo gantaalada balaastigada loo yaqaano kuwaas oo loo arko daandaansi kala soociddu waa muhiim ayuu yiri Jenny Town oo madaxka barta lagu magacaabo 38 nood oo ah bar aad ugu dhuundaloosha arrimaha Kuuriyada Waqooyi dib u dhiska ayaa laga yaabaa in Kuuriyada Waqooyi ay u aragto inaysan qayb ka ahayn barnaamijkeeda gantaalada balse waxa ay tahay xarun arrimaha hawada sare qaabilsan oo aan arrimo military lala xiriirin kala soocitaankaas ayayna marar badan ku celcelisay dawladda Kuuriyada Waqooyi dadka qaar ayaa laga yaabaa inay u arkaan in dib u dhiskaasi ay bidhaaminayso kalsoonidii oo sii naaqusaysa ayuu yiri Mr. Town kulankii labaad ee magaalada Hanoi ku dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa soo dhammaaday iyaga oo aan qalinka waxba ku duugin labada mas'uul ayaa ku guuldareystay inay ku heshiiyaan qaabka horey loogu sii wadi karo tirtiridda hubka nukliyeerka iyada oo aan la qaadin wax cunaqabatayna John Bolton oo ah la taliyaha ammaanka qaranka ee waddanka Maraykanka oo telefishinka ka hadlay maalintii Talaadadii ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay wajahayso cunaqabatayno hor leh waxaana uu sheegay in Washington ay sii wadi doonto la socoshada sida Pyongyang ay uga go'an tahay ka tanaasulidda hubka nukliyeerka iyo arrimo kasta oo la xiriira haddii aysan rabin buu yiri inay sidaas sameeyaan markaas waxay ila tahay in mowqifka madaxweyne Trump uu cad yahay cunaqabataynada dhaqaale ee saaran lagama khafiifin doono waddankaasi Kuuriyada Waqooyi taas beddelkeedana waan sii adkayn doonaa xaqiiqdii ayuu yiri John Bolton dadka arrimahan ka faallooda ayaa waxa ay ka digayaan in cunaqabatayno cusub ay horseedi karaan in dadaalada nabaddu ay gebi ahaanba istaagaan waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal warbixintaasi inaad ka bogateen barnaamijkeennii toddobaadka iyo caalamka oo aynu aalaaba ku soo qaadanno waxyaabihii ugu waaweynaa dhacdooyinka caalamka
markana waxaynu eegaynaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu wacay nin geeri qarka u saaran si uu ugu rumeeyo riyadiisa oo ahayd inuu mar uu la hadlo inta uusan geeriyoonin madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump. Hey. Handsome to me. I just saw a picture of you. No, you're giving me kind honors. I look like How are you doing? How's it going, Jay? it's going, you know what I mean? I'm You're a champ. You're That's- fighting it, right? You're just fighting it? it's what the Irish do, right? nin xanuun halis la ildaran oo ku sugan gobolka Connecticut ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu rumowday riyadii uu lahaa inta uusan dhimanin ninkaasi riyadaasi oo ahayd inuu la hadlo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump kadib markii uu telefoon lama filaan ka helay madaxweynaha waddankaasi ninka uu madaxweynuhu telefoonka u diray oo lagu magacaabo Jay Bratt ayaa waxa uu qabay xanuunka inta badan khalkhaliya hawsha sanbabada dhawaan ayaana laga saaray cisbitaalka oo loo celiyay guri kadib markii meel lagu baxnaaniyo ay u diyaarisay walaashii oo xildhibaanad deegaana isla markaana ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Jay waxaa tahay nooca ragga aan qadariyo ayuu yidhi madaxweyne Trump oo telefoon u diray ninkaasi waxa uu intaasi ku sii daray halganka halkaa ka sii wada halganka waan ku wada jirnaa Eric oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu hadiyad khaas ah u diri doono Jay Bratt warka ku saabsan wicitaanka waxaa markii hore baahisay warbaahinta lagu magacaabo New Haven Register oo ka soo baxda gobolkaasi Connecticut ee waddankaasi Mareykanka warbaahintaasi oo doonaysa in aqalka cad ee waddankaasi Mareykanka ay gaarto xogta labada qof ee kala xisbiga balse iska can qabanaya wargeyska ayayna xildhibaanadu u sheegtay in 100% ay taageersan tahay xisbigaasi dimuqraadiga madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu la hadlayay 44 jirka xanuunsanaya waxa uu sheegay inuu sawirkiisa arkay isla markaana uu qurux badan yahay hase yeeshee Mr. Barrett ayaa ku qoslay hadalka naxariista leh ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump intiisan uu muuqaalkiisa ka saarin meesha Mr. Barrett ayaa sheegay inuu yahay qof madax bannaan oo codkiisa siiya kolba qofka uu doonayo sanadkii 2008 waxa uu codkiisa siiyay madaxweyne Barack Obama balse ma uusan taageerin sanadkii 2012 kadib markii uu ka soo horjeestay hanaankii daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii ka horreeyay ee dimuqraadiga ahaa dhakhaatiirta ayaa sheegay inuu sii noolaan doono muddo 6 bilood ah balse waxa uu rajaynayaa ninkaasi inuu gaari doono ilaa 2020 waddankaasi Maaliland in loo haystay inuu dhintay oo ay dileen ciidamada waddankaasi Faransiiska iyo kuwa Maali ayaa waxa uu soo duubay muuqaal hogaamiyaha kooxda jihaadoonka ah ee dalka Maali ayaa dib uga soo muuqday muuqaal uu soo duubay dhowr bilood kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in la dilay geerida Amadou Koufa ayaa si ballaaran loo tabiyay kadib markii bishii November ay ciidamo Faransiis ah weerar gaadmo ah ku qaadeen muuqaalka oo Mr. Koufa uu ku jeesjeesayo wararka la xiriira geeridiisa ayaa waxaa xaqiijiyay kooxda wax korjoogtaysa oo fadhigeedu yahay waddankaasi Mareykanka ciidamada waddanka Faransiiska ayaa gudaha u galay dalka Maali sanadkii 2013 kuwaas oo gadaal u riixay kooxaha jihaadoonka oo dhul ballaaran oo dalkaasi ka mid ah qabsaday si kastaba ha ahaatee mintidiintaas ayaa waxa ay yihiin weli kuwa khatar muuqata qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi ayaa weli waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda weerarkii bishii November kadib afayeenka ciidamada dalka Maali iyo wasiirka difaaca ee waddanka Faransiiska ayaa xaqiijiyay geerida Mr. Koufa ninkaasi oo ah sarkaal sare oo xubinka kooxda ugu xooga badan jihaadoonka lagu magacaabo Jannat Nasrul al-Islam wal Muslimiin haatan ayaa waxaa dalkaasi Maali oo dhan qabsaday muuqaal muujinaya Amadou Koufa ninkaasi oo xiran cimaamad cad oo ku jeesjeesaya ciidamada Faransiiska iyo kuwa Maali afayeen u hadlay ciidamada waddanka Faransiiska ayaa sheegay in mas'uuliyiintu ay ku hawlan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen waxa ka jira muuqaalkaasi Mr. Koufa ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay sarkaal sare oo xubinka kooxda lagu magacaabo Jannat Nasrul al-Islam wal Muslimiin JNIM taasoo weeraro joogto ah ku qaada dalka Maali iyo dalka ay dariska yihiin ee Burkina Faso
Faransiiska oo hore u gumaystay dalka Mali ayaa waxaa dalkaasi ka jooga kumanaan ka mid ah ciidamadiisa si ay uga hortagaan kooxaha fallaagada. waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal warbixintaasi inaad ka bogateen weli waxaa inoo soo socda warbixino kale ay ka mid yihiin madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddankaasi Venezuela Juan Guaido oo sheegay inuu ku laabanayo waddankiisa Venezuela laakiin markan aadna xagga iyo waddanka Faransiiska maxbuus jihaadoon ah oo ku jiray xabsi ku yaala waddankaasi Faransiiska ayaa waxa uu weerar ku qaaday askartii xabsigaasi waxaana uu ku weeraray mindi warbixin ayaan idinka haynaa. maxbuus ku jiray xabsi ku yaala waqooyiga waddanka Faransiiska ayaa dhaawacyo halis u geystay laba askari oo ka mid ah ilaaladii xabsiga kadib markii uu ku weeraray mindi. mas'uuliyiin Faransiis ah ayaana dhacdadaasi ku tilmaamay mid argagixiso ah. Michael Kielo ayay markii dambe ciidamada booliisku xireen kadib markii ay howlgal fuliyeen fiidnimadii xalay. isaga iyo gabadha isku cindanaayeen oo soo booqatay ayaa lagu go'doomiyey qaybta ay ehelku ku soo booqdaan maxaabiista ee xabsiga aadka loo ilaaliyo ee lagu magacaabo Normandy. ciidamada booliiska ah ayaa markii dambe labadoodaba toogtay. wararka hadda soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan inay gabadhii u dhimatay dhaawicii soo gaaray. mid ka mid ah ilaalada ayaa aad uga dhaawacmay caloosha halka mid kalena wejiga iyo dhabarka laga tooreeyay. Kielo ayaa waxa la sheegay inuu ku dhawaaqayay Allahu Akbar marka uu weerarka geysanayay sida ay wararku sheegeen. isku day dil ayuu runtii ahaa dhiig ayaana meel walba daadsanaa. goobta ay ehelku ku soo booqdaan maxaabiistuna waxa ay noqotay goob dagaal. sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah shaqaalaha xabsiga sida ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP. waxaa loo malaynayaa in mindida ay dhuumasho ugu geysay gabadha soo booqatay sida uu sheegay wasiirka cadaaladdu. waxa uu sheegay inuu rabay inuu u aargudo Chris Kat oo ah ninkii weerarka toogashada ah ka geystay Strasbourg bishii December. sida uu sheegay Remy Heights oo dacwadooga ka ah magaalada Paris. labada nin ayaa xabsiga horay ugu wada qaatay 175 maalmood. waxayna sii wadeen inay emailo isdhaafsadaan sida uu France Info ku qoray bartooda. Kielo ayaa markii hore loo xiray inuu ceejo ku dilay nin weyn oo 89 jira oo isaga iyo qof weheliyay ay dhacayeen. Saciid Axmed Tamreyse madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddankaasi Venezuela Juan Guaido oo sheegay inuu ku laabanayo waddankaasi Venezuela. Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddanka Venezuela ayaa ku baaqay in dad badani ay sameeyaan mudaharaad isaga oo ku dhawaaqay inuu dib ugu laabanayo dalkaasi uu mashaakilku ka taagan yahay. qoraal uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka ayaa Juan Guaido waxa uu ku yiri dadka reer Venezuela oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay maalinta berri 11 subaxnimo inay isu soo baxaan. Juan Guaido oo aqoonsi ka haysta in ka badan 50 dal ayaa madaxweyne Nicolas Maduro waxa uu ugu baaqay inuu iscasilo. balse madaxweyne Nicolas Maduro ayaa waxa uu ku doodayaa inuu yahay madaxweyne sharci ah. waxaana uu taageero ka haystaa wadamada Shiinaha, Ruushka iyo Cuba. ma cadda sida uu waddanka Venezuela ugu laaban doono iyo ficilka uu qaadi doono Nicolas Maduro haddii uu Juan Guaido dib ugu soo laabto waddankaasi Venezuela. madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub haweeneyda lagu magacaabo Federica Mogherini ayaa waxay ka digtay in haddii waxyeello loo geysto Juan Guaido inay taasi keeni karto inay xiisadu ka sii darto. waa hagaag waxaan filayaa daawadayaal warbixintaasi inaad ka bogateen weli waxaanu kusii dhownahay barnaamijka guntiisa iyo gabagabadii bal markan aan eegno xagga iyo waddanka Algeria. madaxweynaha waddankaasi Algeria Cabdilcasiis Bouteflika ayaa waxa uu wariyay ninkii u qaabilsanaa ololaha doorashada. warbaahinta dowladda waddankaasi Algeria ayaa ku warantay in madaxweynaha waddanka Algeria Cabdilcasiis Bouteflika inuu casilay madaxii ololihiisa doorashada Cabdimalik Salaal. wararkan ayaa soo baxay kadib mudaharaado ballaaran oo lagaga soo horjeedo musharaxnimada Bouteflika ee doorashada madaxtinimada soo socoto. wakaaladda wararka ee Algeria ayaa waxaa intaasi ku dartay in madaxa cusub ee ololaha Cabdilcasiis Bouteflika in loo magacaabo Cabdiqani Shaclaan
ilaa iyo haatan lama shaacin sababta Salaal looga fadhiisiyay shaqada laakiin go'aankaas ayaa waxaa la gaadhay kadib markii dhowaan 10,000 oo reer Algeria ah ay mudaharaado ay ku diidan yihiin inuu mar shanaad xilka u qabto Bouteflika ay dalka ka dhaceen tan iyo markii uu ku dhiftay cudurka faaligu sanadkii 2013 ayaan inta badan Bouteflika oo 82 jir aan lagu arkin fagaarayaasha waxaana madaxtinimada dalkaasi Algeria uu hayay tan iyo sanadkii 1999 toddobaad ka hor ayuu waxa uu u socdaalay dalka Switzerland oo sida xafiiskiisu uu sheegay uu u tagay baaritaano caafimaad oo caadi ah dhanka kale muddada musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo inay tahay inay waraaqahooda musharaxnimada ay ku gudbiyaan ayaa waxa ay ku eg tahay saqbarka caawa waxaana xeerku uu dhigayaa inay iyagu si shakhsi ah u xareystaan raajidooda xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha ayaa isagu waxa uu sheegay inuu qaadacayo doorashada la qorsheeyay inay dhacdo bisha soo socoto xisbiyada kale ee mucaaradka ah iyo waliba shakhsiyaad madax bannaan ayaa iyaguna waxa ay ka wada xaajoonayaan sidii ay isugu raaci lahaayeen musharax kaliya oo ka dhaxeeya wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna sheegtay inuu qof ku dhintay ku dhowaad 200 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen mudaharaadadii dhowaan ka dhacay waddankaasi Algeria ciidamada booliiska iyo dadkii mudaharaadayay ayaa waxaa rabshado ay ku dhex mareen meel u dhow qasriga madaxtooyada ee caasimadda dalkaasi Algeria ee Algiers waxaana ciidamada booliisku ay u adeegsadeen dadkii mudaharaadayay oo shiid sida roobka kaga dhigay ciidamada booliiska sunta dadka kaga ilmaysiisa waa hagaag waxaan filayaa daawada warbixinadaas inaad ka bogateen barnaamijkeeni toddobaadka iyo caalamka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Saciid Axmed Hamreyse halkaan nagala socotaana waa telefishinka caalamiga ah ee Star markan waxaan idin soo qabanayaa qodobo kale oo ka mid ah qodobada ku jira barnaamijka hay-adda maamusha hubka kiimikada ah ee magaceeda loo soo gaabiyo OPCW ayaa baaritaan ay waday waxa ay ku soo gabagabaysay in weerarkii sunta kiimikada ahaa ee magaalada Duuma ee dalka Suuriya loo isticmaalay chlorine hay-adda OPCW ayaa sheegtay in baaritaankooda uu muujiyay in sun kiimika loo isticmaalay weerarkaasi sunta kiimikada ah ayaa waxaa ku jirtay chlorine halis ah ayay hay-addu intaasi ku dartay dhakhaatiirta ayaa sheegay in 40 qof oo ku sugnaa goobaha ay ka taliyaan kooxaha mucaaradka ahi ay ku dhinteen weerarkaasi oo loo adeegsaday hub kiimika Mareykanka boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ciidamada dawladda ee waddanka Suuriya ee ku sugnaa magaalada Duuma waxa ay ku eedeeyeen inay weerarkii 7 bishii Abriil u adeegsadeen hub kiimika waa hagaag waxaan filayaa daawada qodobadaas xiisaha leh iyagana inaad ka bogateen waxaan ku sii dhownahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka bal intaynaan ka bixin barnaamijka markan waxaan rabaa inaan dib idin xasuusiyo qodobadii aynu ku soo qaadanay barnaamijkeena toddobaadka iyo caalamka aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa cod aqlabiyada ku cambaareeyay hadallada dulqaad la'aanta ah ee nacaybka ku salaysan iyada oo bartanka lagaga jiro muranka ku saabsan yuhuud nacaybka shirkadda Google ayaa wali ka aamusan arrimaha ku saabsan barnaamij Java oo ku shaqeeya internetka oo loo adeegsaday shirkadeeda haweeney khabiir sare ah oo ku xeeldheer cilmi nafsiga ku saabsan carruurta ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi uu ku khasban yahay inuu raaligelin bixiyo kadib markii dhowr maalmood ka hor isaga oo kaftamayay loo fahmay inuu meel uga dhacay barnaamijka ka shaqeeya xanaanada carruurta ay fahmadoodu hooseyso shirkadda baabuurta samaysa ee lagu magacaabo Pininfarina Battista ayaa waxay dhowaan magaalada Geneva ku soo bandhigtay gaariga noociisa aan horey loo farsameynin waana mid dhammaantiis koronto ku shaqeynaya sawirro cusub oo laga qaaday hawada sare ee waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa tilmaamaya in dalkaasi uu dib u dhisayo goob uu tijaabooyinka u adeegsan jiray oo uu horey u sheegay inuu meesha ka saarayo sida ay sheegeen dadka arrimahan gorfeeya
It's going, you know what I mean? I'm You're a champ. You're gonna It's- fight it, right? You're just fighting it. it's what the Irish do, right? nin xanuun halisa la ildaran oo ku sugan gobolka Connecticut ee waddanka Mareykanka ayaa waxa uu rumowday riyadii uu lahaa inta uusan dhimanin ninkaasi riyadaasi oo ahayd inuu la hadlo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump hogaamiyaha kooxda jihaadoonka ah ee dalka Mali ayaa dib uga soo muuqday muuqaal uu soo duubay dhowr bilood kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in la dilay maxbuus ku jiray xabsi ku yaala waqooyiga waddanka Faransiiska ayaa dhaawacyo halisa u geystay laba askari oo ka mid ah ilaaladii xabsiga kadib markii uu ku weeraray mindi Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddanka Venezuela ayaa ku baaqay in dad badani ay sameeyaan mudaharaad warbaahinta dawladda waddankaasi Algeria ayaa ku warantay in madaxweynaha waddanka Algeria Cabdicasiis Bouteflika inuu casilay madaxii ololihiisa doorashada Cabdimalik Salaal hay-adda maamusha hubka kiimikada ah ee magaceeda loo soo gaabiyo OPCW ayaa baaritaan ay waday waxa ay ku soo gabagabaysay in weerarkii sunta kiimikada ahaa ee magaalada Duuma ee dalka Suuriya loo isticmaalay chlorine waatahay daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni toddobaadka iyo caalamka waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Saciid Axmed Tumreyse halkaa nagala socotaana waa telefishinka caalamiga ah ee Star intaan dabcan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh